runtii haddii lays yidhaahda ka warrama 3 mawduuc oo wakhti badan qaadanaya weeyaan wakhtiga la haystaana waa wakhti aad u kooban in qaad lagaga warramo mar labaad shiishad haddii laga warramayo waa qiiq tubaako la cabayo waa in sigaar laga warramaa dabeetana la isweydiiyaa maxaa difference u dhaxeeya shiishadda iyo sigaarka marka 3 shay in lagaga hadlo wakhti aan filaya 40 daqiiqo inuu ku eg yahay waa aad bay u dhib badan tahay cumuuman marka aan soo duubo waxaan isleeyahay qaad markaynu idhaahno soomaali qofka ahi malaa waa well experienced yacni waa qof si fiican u yaqaana qaad wuxuu galo iyo wuxuu gudaba taariikhiyan dib ugu noqon maayo laakiin qaadka waagii hore reer galbeedku juhdi badan may gelinin waayo dhulkoodana laguma cuni jirin manay aqoonin nimankii ugu horreeyey soo arka waxay ahayn 5 nin ee Scandinavian-ka laga diray ee magacaba uu bixiyey ee Yemen tagay iyagana markii dambe kana caalaysayba way madheen marka cumuuman la eego marka qaadka daraasaadkiisu waxay inta badan bateen 70-aadka wixii ka dambeeyey 70-aadka wixii ka dambeeyey baxthi badan baa lagu sameeyey natiijooyin tiro badanina way ka soo baxeen daraasaad jaamacaad tiro badan kuwa Maraykanka kuwa Jarmalka kuwa Switzerland qaar Ingiriiska dad badan baa sameeyay buxuus Sacuudiga xataa jaamacaddii Soomaaliyeed ee Muqdisho ee baxthi bay ka sameeyeen 3 marka la eego buxuustaasi tirada badan lee laga qoray runtii dhammaantood waa ku argagax gelinayaan wax wanaag lagu sheegayaa ma jiro tala United Nations WHO 1973 baan filayaa markay baaritaanadoodii koowaad sameynayeen 40 maaday sheegeen oo ku jira laakiin waaga may aqoonin maadada tan ugu khatarsan ee cathinone la yiraahdo waayo cathinonku maadaday marka iyagu moodayeen inay ugu khatarsantahay ku jirta waa cathinku waa light drug waa stimulant waa drugska 3 qaybood bay u qaybiyaan qayb kicisa jidhka iyo maskaxda iyo qofka bini'aadamka fikradiisa iyo qayb nabto oo dejisa oo hurdaysa iyo qayb hallucination khayaalun iyo inuu wax maqlo iyo riyo ku itixaanta qaadku isagu wuxuu ku jiraa waa stimulant cocaine-ku la kooxiyay waa qaybaha kiciya qofka bini'aadamka qaadka marka ugu horeysay wixii ay ka heleen maadada caffeine-ka oo ay ku tilmaamayaan inay psychoactive drug tahay oo ay la drug fudud tahay ayay moodayeen inay wax walba tahay inkastoo iyada lafteedu caffeine-ku World Anti-Doping Agency-ga mamnuucaadkiisu ku jira qoladan orodada iyo Olympiga iyo kuwa wax ciyaariya maadaadkan laga baadho ee qofka leega inuu dragaysan yahay in kale kuwaasay ka tirsan tahay waxa uu shartiya inuu 5 microgram per milliliter inuu ka yar yahay hadduu 5 microgram soo gaadho waa drug abuse waa kuwan orodada laga reebay iyo waxaan oo dhan bay ku jirtaa marka asliyan iyaba waa maado ah maadaadka dunida loo rumaysan yahay inay drugska ka mid tahay laakiin way ka fududahay ta kale marka loo eego cathinone-ka maadada la yiraahdo mawaada ugu khatarsan ku jirta ah marka hore lama garanin laakiin waa lagu qanci kari waayay inay caffeine qura waxa ku jira ay tahay haddana wixii kale ku jiray waa xoog loo sheegi kari waayay ama la garan kari waayay waayo waa lagu qanci kari waayo caffeine-ku waxa uu ugu badan yahay inta la tuuro marka haddii waxa loo cunayaa ay tan tahay bay leeyihiin maxaa loo tuuraya ma iyada aad loo cuno garaabadan weyn iyo ushan dheer oo baalka samaysan iyo kuwaasay ku badantay intan yara curubta la goosto kuma badna su'aasha isweydiinta le waxay noqotay marka war haddii bahalkan caffeine yahay waxa loo cunayaa maxaa intii la tuurayayna ku badiyey intan la cunayana ku yareeyay waa inay jirtaa wax kaloo intan yari ay wadato gaara taas waxay keentay in baxtiga dib loogu noqdo 1975 ayay markaa isolate gareeyeen oo soo saareen maado la yiraahdo cathinone inay ku jirto
1978na molecular structure-keeda ayaa la soo bandhigay oo waxay reciprocal u tahay waa un amphetamine natural amphetamine bay ku tilmaamaan waa amphetamine muraayada chemicals ay u samaysantaa haddii muraayad loo dhigo qaabkay u soo baxayso ayuunbay u soo baxaysaa bay yidhaahdaan cathinone waxyaabaha ay baadhista ugu adkaatay waxaa ka mid ah maadaama westranku inta badan waa dhulka wax lagu baadhayo qaadkuna wakhti badan la soo saadayo waa maada aan joogisteedu badnayn 48 saac kadib cathin iyo neuroephedrine bay isu beddeshaa waa 48 saac marka geedka laga soo jaro oo qura ayay sideedii u joogi kartaa wixii ka dambeeya waxay dhahdaan nimanka qaadka warramaa qaadka waxa la saaro dhami way dheereeyaan sababta ma garanaysaan di dameer la saaro di awr la saaro di gaadhi la saaro wax kastoo la saaro waa la eriyaya waxa weeyaan maadadan baa la ilaalinayaa inta aanay isbedelin in dadka hore loo gaarsiiyo maadada tan inta aan isbedelku ku dhicin in dadkii cunaya ee hore u gaadho waa la soo duuduubaa oo berigii horena caleen muusiya waxbaa lagu soo duuduubi jiray amaba si moisture-keediiyo waxeeda loo ilaaliyo waayo maadadani hadday iftiinka la kulanto ama oxygen-ka ay la kulanto markiiba way isbeddeshaa qolada qaadwalaha waxaa ka maqashaan kala furfuro ma jecla inay cunaan waa mid rabdada nasiib ay dhahay mid hadda duuduuban waayo kan duuduuban cathinontiisiibaa ayaa u ilaashan laakiin haddii la furfuro oo la baadhbaadho kolba dabadda loo soo bandhigo oo uu iftiinka la kulmo ama oxygen badan la kulmo chemical structure-kiisii baa isbeddelaya marka cathin bay noqonaysaa ama neuroephedrine bay isu beddelaysaa oo cathinone bay ka baxaysaa marka waa unstable bay yidhaahdaan maaddo ah maadaama ay maaddo unstable tahay waa in qaabka loo kaydinayo qaabka loo dedejinayo qaabka qofka loo gaadhsiinayo 48 saac hadduu dhaafo daraggii loo baahnaa maaha waa inuu wakhti fudud lagu geeya cumuuman 40 maaddo wax ku dhadhow baa ku jira tanise waa maadada ay drag ahaan u leeyihiin waa u khatarsan tahay waayo dunida badhna drugska herarkiga ay kala leeyihiin qaybta saddexaad baa ku jirta maraykankana qaybta afraad baa ku daraa laakiin mawaad kalena waa ku jiraan maalan tannic acid baa ku jirta tannic acidka waxa weeyaan waa acid dhan lagu magdiyo haragga kan qaadka cuna waxaan ilku uga daataan ama dibnuhu caddaadaan ama waa nin acida haragga lagu magdiyey ee qurunka lagaga gooyo dee afka ku walaaqaya that's why uu dhacayso waxa kani waa sababaha ku keena inta badan ulcerku ku dhaco waxyaabo badan oo kale ku jira laakiin maadada tani cathinone-ka la yidhaahdaa chemically waxay dhahaan laba shay bay sababtaa wax degdega iyo wax long term ah waxyaabaha degdega ay keento waxaa ka mid ah qofku markuu bahalkan cuno central nerve systemkiisa ayay been u sheegtaa dabeetana qanjidhkan kelida kor saaran baa soo daaya dheecaamo kadibna maskaxdu waxay bilowdaa firkanax waxay ku tilmaamaan firkanaxaasi wuxuu yahay qofku markuu baadadatani jidhkiisa gashay koowaad waxaa bilaabmaya firkanaxu waa qofku markuu dagaal maalan markaad u diyaargaroobayso kale qofku markuu dagaalamayo jidhkiisa maxaa isbeddela waxa isbeddela wadna garaacistiisa badata si aad enerjigu xoog u heli karto waxa isbeddela bay yidhaahdeen yacni waxyaabo badan oo jidhka ka mid ah ayaa isbeddel uu ku dhacaa marka maadada tani markay jidhka gasho xididadu way yaraadaan waayo waxaa loogu talagalay qofku hadduu dagaal galo xididku hadduu ballaadhan yahay dhiig badan baa kaa qubanaya ilahay baa kuugu talagalay marka aad dagaalamayso in xididkaagu yaraado si aan dhiig badani kaaga quban mawaadda sameeya waxaa la yidhaahdaa bahashan la yidhaha xinjiraha way diyaargaroobaan si haddii nabar kugu dhaco qofka qaadka cunaya instantka koowaad wuxuu la mid noqdaa sidii qof dagaal galay oo kaleu jidhkiisu u react garaya marka waxa isbeddela waxyaabo tiro badan leh effectska ay sheegaan markaa waxaa ka mid ah garaacista wadnahoo badata neefsashadoo degdeg noqota temperatureka jidhkaoo kor u kaca blood pressurekaagoo kor u kaca qofka euphoria taga
ama marqaanka waxaanay ku sheegaan waxa bilaabma bay dhaaheen euphoriada marka uu gaadho marka hore maadada tani nus saaca hore waxay ku sii jirtaa wali inuu jidhku nuugis ku sameeyo laakiin marka uu nuugistaa jidhku ku sameeyo uu jidhka ay gasho waxa bilaabma waqtiga hadal badnida qolada qaadka cunta marka hore la baalka lagu goosta cabaan marka la jooga sheekada isku duba dhacda markaas la wada hadlaa waxay dhahdaan maadadani waxay sababtaa marka koowaad in uu qofku talkative isu bedelo oo aad u hadal bato waxay kaloo samaysaa bay dhahdeen manic behavior ama hyperactive buu noqdaa dhaqan waalimeedka u eg markay marqaamaan waad aragtay mooyiinaad u fiirsatay midi garaabadan agtiisa taallu googooya qaar qori yar bay jeexjeexaan qaar afku dhaqdhaqaajiya yani waa manic behavior bay dhahdaan waa nooc waalida ka mid ah waxa uu bilaabmaya bay leeyihin qofku inuu jidhkiisu controlku ka lumo qaybaha qaar ka mid ah ama involuntarily waxyaabo badan oo aan ahayn wuxuu normally u samayn jiray inuu bilaabo inuu qabto oo qof hyperactive uu noqdo energetic uu u muuqdo waxyaabahay samaysa waxaa ka mid ah bay idhaahdeen xiidmaha iyo qaybaha kan way seexisaa muscle contractionka release baa ku dhaca taasi waxay sababtaa constipation kan tirada badan leh dadka qaadka laasima inta badan calool istaag baa ku dhaca baasiir baa ku dhaca yani xanuunada noocaasi oo dhan ayay la kulmaan waxa ku dhacaba la yidhaahdo qofku wakhtiga kan hadduu sii badsado ama bay yidhaahdeen markuu isku dayo inuu iska yara daayo wakhti yarka uu ka baxo hallucination baa ku dhaca bay yidhaahdeena ah inuu waxyaabo sasawiro waa waxaanay soomaalidu dubaabka tidhaahdo soomaalidan maqalqolada qaysa markay yidhahdaan qaad baan waayo dubaab baa cunay iyo kan baa dhacay waa hallucinationiskan bay yidhaahdaan hallucination ayaa ku dhaca waxyaabaha uu sababo waxaa ka mida bay yidhaahdaan hadduu qofku marka uu iska daayo trimorba ku dhacba isagoo iska fadhiyin baa kolba jidhka meele dhaqaaqda uu moodaa in la taabanayo ama muruq gariira ama jidhku dhaqdhaqaaq badan uu sameeya nightmare baa ku dhaca inuu habeenadii riyooyin badan uu sameeyo waxay tilmaamaan qofku inuu marqaanka gaadhaa wuxuu u baahan yahay bay dhaheen jidhkiisa kiilo kasto ka midi inuu 0.8 milligram of cathinone uu qaato maalan ninka 70 culayskiisu yahay 56 milligram cathinone buu u baahan yahay siduu waxaanaynu sheegaynoo dhan uu u gaari karo ama uu samayn karo waxaan isku dayayaa wakhtigoo yar inaan wax badan ka tallaabo oo soo koobo waxyaabaha ay leeyihin uu sababaa waxaa ka mid ah sonkorta jidhka baallada ku jira tribinoidska ku jira daraaddeed sonkorta jidhku way badataa dadka macaanka qaba khatar buu u yahay waayo sonkorta jidhkooda ayuu tiro badiya soomaalidu laakiin waxay moodaa qadhaadhku inuu wax ka taro macaanka inuu wax ka taraa bay moodayaan waxyaabaha uu keeno waxaa ka mida bay yidhaahdaan xanuunada psychologicalka qofka ku dhaca oo qalaqa kan ama idiraabka nafsiga ama waxaan iminka soomaalidu ay buufiska u bixisay qofkoo codad maqla ama xataa dadka qaarkood paranoid wuu dhaafaa psychophrenia buu la gaadha oo ah inuu qofku codad maqlo ama uu shakiyo uu yidhaahdo waa lay xamanayey qof laba qofoo meel iska fadhiya yidhaha maxay imaagayseen ama maxay xamanayseen ama maxay igu hadal hayseen waxaa ku dhaca bay yidhahdeen qofka isagoo qura maahe weliba wakhtigan dambe maadaama uu batay conceptionkiisii cunistiisii markay badatay qaad qura maaha bay leeyihiin sidiisuu toxic ku yahay kuwan beera waxyaabahan lagaga ilaalinaya caleenta iyadaa la iibinayaayo inay fiicnaato la rabaa dhalaasho marka pesticideska iyo insecticideska iyo kuwan lagu daro caalamka laga keeno DDT iyo qaar la mida baa lagu daraa ilaa xad laga helo dadka cuna qaar ka mid DDT caadiya dhiigooda dhakhaatiirtu intay baadho DDT caadiya laga helo ma aha inuu qaadku materialkan DDT-ga u leeyahay ma laha isagu laakiin waxa uu la socday waa dawooyinkii lagu buufiyey wixii lagu ilaalinayay inuu si fiican u baxo ama caleentu aanay daldalool yeelanin ama ay quruxsanaato waxaynu naqaanaa qaadku wuxuu keenaa balwado badan oo kale uu bilaabaa inta badan qofku markuu qaadka cuno smokingkuna wuu raacaa inuu sigaarka cabo
dad badanoo galbeedka jooga qaadka markay cunaan khamri ka daba cabaan waayo khamradu waxay ka mid tahay drugska kuwa caqliga dejiya ama daboola qaadkuna wuu kiciyaa marka waan ku jebinayaadaan ay yidhahdaan waa runtood qaadku kor buu u qaadayaa markuu dawakhana khamri markuu cabana dib buu u celinaya haddana waa laba waaliyoodoo midba dhinacu socoto waa ka mid dee waxyaabahan kale drug relatedka la ah meelahan lagu cunayo waxa kan xanuunada infectionka lagu kala qaadaa yani maalmaa ka mid ah waddan yurub ka mid ah bay godadka yara lagu qayalo mid ka mid ay qabteen waxaan rajaynayaa haddaanan hilmaamin 12 qof bay qabteenoo 8 bay tiib bay ka heleen yani maca way wateen raajitadoodii oo dadkan waa loogu taag waayay dhakhtarkaale iyo waxaa marka qolada hygiene-too guuraysaa meesha intay dul timi ayaa la qabqabtay dabeetana toos baa loo saaray sawirradii wixii la rabay laga qaado 12 qof baa 8 laga helay TB isagu TB-da ma keenin laakiin circumstance-kan ku xeeran dhulkan lagu qayalayo meeshan la fadhiyo waxa kan ayaa keena problems-kan tirada badan leh waxay isweydiinayaan inta aan drugga kanaad xoog u isticmaashay aanu waalida gaadhsiinin financial crisis-ka uu sameeyo dhaqaale burburka uu sameeya isaga qayb weyn ka ah bay yidhaahdaan waalida ku timaada iyo buufiska dadka kan ku dhaca waxaa ka yimaada bay yidhaahdeen qofka oo 8 saacadood oo wakhtigiisa ka mid ay ka khasaarto oo dee meelun fadhiyo sheekaynaya waxay yidhaahdaan waxaa ka mid ah marka uu cuno ee uu wakhtiga uu cunistiisa ku jiro waa hyperactive marka hore laakiin marka dambe wuxuu bilaabaa inuu dumo marka uu soo dumayo haddaad meelaha qaadka ku cunaan aragto marka hore ee bahalka la bilaabo waa la wada farfaraxsan yahay markuu si fiican jirka u galana sheekada iyo hadalkaa badata marka dambena waa la kala wada aamusaa ninba meel buu gaar isaga jeestaa uu u aamusaa waa markuu bilaabmo bay leeyihiin euphoriadu inay degto marka drowsinessku waa markuu ku bilaabmo qof waliba inuu gaar u aamuso hadhow markuu ka luqluqdo inuu meelaha finfindhicisho ama keligii meel istaago waxyaabaha uu keena waxaa ka mid a bay leeyihin hadhow inuu hurdada seexan kari waayo hurdayari baa ka mid a waxyaabaha la socota markuu hurdada seexan kari waayo waxay yidhaahdaan nin soomaaliyeed baan arka wuxuu igu yidhi 7 shaqaa layga eriyey buu yidhi 7daba qaad baa laygaga eriyey yani 7 shaqaan ka tegey buu igu yidhi 7daba waxa laygaga eriyuun anigoo intaan habeenkii qaad cunay subaxii ama daalay ama hore u kici kari waayo ama wakhti dambe tegey sabab qaad baa laygaga eriyey waan iska daayey buu yidhi oo shaqaan bilaabay 5 sannadoodoo isku xigtaanan xataa maalin xanuunsan buu yidhi markaasay igu yidhahdeen buu yidhi war adigu dadku maalin xanuuna wuu qaataa maad iska xanuunsatidna yani gaalada waxay dhahaan berri waan xanuunsan doonaa bay dhahaan 3 days year baa la ogolaya in marka wuxuu tilmaamayay in noloshiisa inta uu difference-ka u dhaxeeya inta uu leegyahay markaan soo duuduubo runtii wakhtiga daraaddeed waxa laga qoray aad bay u tiro badan yihiin laakiin qaybtiisa psychologicalka markaynu tilmaamno waxay yidhaahdaan stage 1ka 20 ilaa 25 daqiiqadood ama 15 daqiiqadood ilaa 20 daqiiqadood ugu horeeya wuxuu galaabay yidhaahdeen xaalatu tanbiih ama atanabuh xaaladda soo jeedkii hore sidii nin koofi cabay oo kale firfircoonida horuu dareema 90 minute markay gaadho bay yidhaahdaan waa xaalatul kayf waa euphoriyada markuu gaadho marqaanka rasmiga markuu gaadho hadalku tiro bata weeyaan xaaladda saddexaad bay yidhaahdaan oo marka uu ka kacayiyo waa marka alqalaqi nafsi uu bilaabmo maqaayiis tiro badan oo ay ku sameeyeen ama qiimayn tiro badan iyo baadhitaanno tiro badan oo ay ku sameeyeen waxay caddaynayaan kow inuu khalkhal geliyo cawaatifta qofka bini aadamka oo dhan oo uu ka mid yahay faraxa murugada ay ka mid tahay nacaybka jacaylka ay ka mid tahay dhaqdhaqaaqa ay ka mid tahay dhiiranida baqaha waxaasoo dhan khalal buu ku sameeyaa bay leeyihiin oo qofku normalitygiisii ma noqdo marka aan soo duuduubo waxaan leenahay waagii hore ee qaadka aqoonta loo hayay scientifically ay yarayd muran badan baa jiray bayna alculamaa kuwa sharciya iyo kuwa kaleba muranku wuu badnaa waayo qadaayaad scientifica oo yaallay ma jirin laakiin wakhtigan dambe hadda qof aan ogayn unbaa murma
laakiin daraasaadkiisa cilmiga qofka akhriya runtii ma murmi karo sida awgeed ayaa munadama sixa alcaalamiya WHO 1979 ayay baaxisiinteedu waxaa lagu daray inuu ka mid yahay 40 maado bay sheegeen oo qaadka laga helo waxaana aakhirkii la go'aamiyey inuu drugska ka mid yahay maandooriyayaashay ku dareen مؤتمر العالم الإسلامي لمكافحة المسكرات والمخدرات iyaguna waxay go'aamiyeen inuu ka mid yahay mukhadaraadka sharciyan xaaraamta ah fataawi العلماء المسلمين markaynu eegnana fataawi aad u tiro badan oo fogeynaysa ayaa ka soo baxday duduub ahaan waxay adilo sheegaan waxaan jeclay inaan mar wada sheego laakiin haddaan qaadka inaha ku koobo oo masalada labaad ee yana lay dhiibay tilmaamo oo ku saabsiisan shiishadda intaana shiishad ka warramin malaa inaan dee sigaar wax yar ka tilmaamnaabaa roon sigaarku maanta cilmiyan waa maadooyinka sida fiican loo baadhay waxay caddaynayaan 400 oo maado inay ku jiraan sigaarka yaraa la qiiqinayo 400 oo maado FDA-ga Maraykanku waxay u ogol yihiin 599 addictive baa loo ogolaaday in lagu dari karo oo legal ah oo lagu dari karaa 400 oo maado wax gaadhaya ayaa ku jira bay yidhaahdeen qaar ka mid ah haddaan idin sheego u fiirso waxaa ku jira maadooyin sunah waxaa ku jira aan idin tiriyo qaybo ka mid ah sigaarka qiiqiisa la cabaya waxaa ka mid ah waxyaabaa ku jira ammonia ammoniyadu waa waxyaabaan musqusha lagu maydho waa detergent musqulaha lagu maydho waxaa ka mid ah acetone ama acetone acetonku waa solvent waa waxyaabahan mudiibka wax lagu dhalaaliyo maalan waxyaabaa loo isticmaalo waxaa ka mid ah dumarku xamuuradda ay marsadaan bahalladan la iskaga maydho acetone bay ka samaysantay waxyaabahan lagu maydho ee lagu dhalaalinayo xamuuraddan yar ay dumarku marsadeen acetone bay ka samaysantay waxaa ka mid ah toluene iyana waa mudiib kale waa solvent kale oo industrial warshadaha lagu isticmaalo waxaa ka mid ah ilaa iyo 6-7 maado oo la wada ictiraafsay inay ka mid yihiin mawaad musartana ama carcinogenic substances mawaadda keenta kansarka pyrin baa ka mid ah urethane baa ka mid ah naphthylene baa ka mid ah cadmium baa ka mid ah cadmiumka ma taqaanin qiiqa sigaarku ku jira waa baaterigan gawaadhida bahal ku jirta baateriyadan gawaadhida inuu ku kaxaysano bahal ku jirta weeyaan cadmiumku waxaa ka mid ah dibenzofenadrine waxaa ka mid ah maadaad mushaca xataa radioactive qaar ah polonium 210 baa ka mid ah oo maadda mushaca ah maaddo radioactive leh waxaa ka mid ah sumo maalan maaddadan arsenica la yidhahda arsenic waa poison lethal poison weeyaan waa sunta quraanjada cadi markay ku qanintaay kugu reebto quraanjadana cad sumaha markay dadka qanintaay ku reebto waa arsenic baa la yidhaahdaa waxaa ka mid ah naftaliintu waa sun kale baashan yar ee dharka ku xoqxoqataan sunta ku jirta weeyaan waxaa lagu laayaa dadkan jidhkeennu markuu gaboobo xasharaad baa jira dusheenna iska fuushan oo cuna dadkan allergika noqda baa markaa allergi ku noqda marka bahashaas alcatha baa af carabiga alcath bay yidhaahdaan qaatil alcath weeyaan waa xayawaanadaa sariiraha korkooda saaran carruurta yaree allergiga la yidhaha laga beddela sariira waa xayawaanka saaran sunta lagu laayo ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah DDT caadiya ku jirta qiiqa sigaarka waxaa ka mid ah carbon monoxide iyo carbon dioxide labaduba waraaqdiisan sare gubanaysa carbon monoxide baa ka yimid carbon monoxide waa qiiqan uu soo daayo gaadhigu inta aanu weliba oxygen-ta dabadda la kulmin aanu dioxide-ka noqonin ee monoxide-ka wiye waana sun sidiisa waxaa ka mid ah methanolku waa rakidyadan cirka loo diro shidaalka lagu shido ayaa ka mid ah waxaas qiiqa sigaarka ku wada jiraan waxaa ka mid ah butane gas
walaacaddan yare la shido gaaska lagu shito ee shidaalka laga soo dhex saaraa ka mida waxaa ka mida phenyl chloride waa plastigiska ladaa'inka plastiga marka la samaynayo maaddo ka mida mawaadda lagu sameeyo waxaa ka mida mawaadda ku jirta gaasiskan meelaha wax lagu gowraco waxaa jira xayawaanada qaar ay bakhtiyaan oo gaas lagu dilo gaasiskaasi suntaa qaar ka mida ku jira yacni kulli haada aan sheegayo haddaad google imageska gashaan ama youtube aad gasho waxaad arki doontaa iyadoo xabad sigaara inta la sawiray sumahanoo daasada ku jirana ay dhinaca kaga wada sawireen oo la tilmaamayo waa masaa'il aan muran ku jirin waxaa la rumaysan yahay maanta kansarka ugu tirada badan lee dunida ka dhacee laab ku dhaca inuu ka yimaado qiiq sigaarka inaynu isku maanta ma aha mas'alo muran ku jiro inuu boysi yahay bale waxaa la leeyahay 600 oo kun oo qof buu dilaa oo ah sigaarka salbiga ah kacabaya mooyaan kan soo afuufay dadka ay la nuugayaan kuwa u dhinta 600 oo kun dunida gaadhaya bay leeyihiin sigaarka caadiga ana dunida 5 milyan dad ah buu ka dilaa bay yiraahdaan shiishadu hadaba ma ka gadisantahay meeshaan u socday waxay ahayd shiishadu miyay ka gadisantahay maya shiishadu waa tubaakadii saddex nooc bay u isticmaalaan wala tubaaka khaliya saarta bahasho ku gubta oo dhuxul saara qolo tubaako munakaha intay xagga dambe galaan bay khamiiriyaan waxyaabaha lagu khamiiriyo waxaa ka mid ah khadkan wax lagu daabaco madbacadu khadka isticmaalaan waa khad yaro dhalada yaro intaa waxa laga yaabaa dhowr kun oo kitaab inay daabacdo kaasaa lagu daraa waxyaabaha lagu khamiiriyo ka mid ah waxaa ka mid ah nakaadka frutiska ama tufaax ama nacnaac ama waxaasi nakaadkaasaa ka mid ah waxyaabaha ay ku sameeyaan laakiin shiishadu miyay ka gadisan tahay shiishadu kama gadisana saddexda maadde ugu khatarsan ee sigaarka ku jira waa nicotinka soo ma taqaaniin nicotin waa safiirkii faransiiska ee sigaarka u doodi jira baasha loogu magac daray ee lashboon deganaan jiray waa nin faransiisa magacii nicotinka kow iyo daamurka maxaa tidhaahdaa laamiyeri miyaa la yidhaha xamar baalkan lagu dhiso waddooyinka ya laami okay waa qatraan waa daamur iyo carbon monoxide waa saddexda ugu khatarsan ee ku jira bahalka ee mawaadoodu tiro badantay kuwa kale aynu sheegano oo dhamma waa khataro waa ku jiraan laakiin quantity-ga ku jira ayaa yar laakiin saddexdan maaddo quantity-ga ku jira badan shiishadu waxay leeyihiin kow carbon monoxide-ka ku jira wuu ka badan yahay ka laga cabo qofka shiishada caba carbon monoxide-ka uu cabaa wuu ka tiro badan yahay ka sigaarku cabo waayo ka sigaarka uu cabaa wuxuu ka yimaadaa waraaqda yar gubisteeda laakiin kani wuxuu ka imanayaa bay leeyahay dhuxusha lafteedii ilaa dhuxushii baad nuugaysaa oo qiiqii dhuxushaad nuugaysaa maadaama aad qiiq dhuxuleed nuugayso carbon monoxide-kaad cabbaysaa waxay leeyihin 20 times buu ka badan yahay ka sigaarka laga cabo waa marka koowaad waana maadda musartana waa maadooyinka kansarka laga qaado waxaa kaloo ka mida bay leeyihin nicotinka iyo daamurka ku jira iyana way ka tiro badan yihiin labadaba waxaan jeclahay inaan waxoogaa ka tilmaamo shiishadu dadka badh horta shiishada iyo sigaarka waxa qudha u dhaxeeyaan odhan karee muuqda waa filtrationka waa qaabka loo filter gareeyay labada sigaarkana buush yar baa la dhex mariyaa u filtara tanna biyaa la dhex mariyaa labaduba waxay filter gareeyaan oo badani ma jiro waxa ugu badanee labaduba ay filter gareeyaan waxa weeyaan in daamurka ka mid ah waa sababta ay biyaha shiishaduna yalowga u noqdaan sigaarka dabadiisuna ay yalow u noqoto maadooyinka ku jira sigaarka dhammaantood waxaynu leenahay waa ku jiraan shiishadana faraq u dhaxeeyaa ma jiro waxa qura faraqaynu nidhi waxa weeyaan qaabka loo sameeyo filtrationka ama midna biyo dhex mara
midna buushkan yare la cabayo dhex maraa labadaba waxaan ka casi waa daamurka ama laamiga markuu meesha tan dhex maro qayb ka mid ku hadhaa casaada baxthi ay sameeyeen ama cilmi baadhis New Zealand nagu sameeyaa waxaa la tilmaamayaa sigaarka la cabo sanadkii daamurka ku jira bay yidhaahdeen haddii waddo lagu dhisi lahaa 5 kilomitir iyo badh waddo ah baan u baahateen daamurka leen lagu dhiso bay yidhaahdeen sigaarka bini'aadamku cabo kaliya lagu dhisi kari lahaa waa daamurka ku jira waxay tilmaamaan nikotiinka ama sunta nikotiinka ee baalku jirta horta daamurka intaanan dhaafin daamurka oo qura haddii isaga chemically la baadho konton maado oo sababa kansarka ku jira daamurka kaliya konton maado oo sababa kansarka ayaa ku jira daamurka dhexdiisa maadadan kale nikotiinka aan tilmaamayno ku jirta nikotiinka sidiisuba marka hore waa maado lagu laayo cayayaanka beeraha iyo dhirta yaryar labadaba waa lagu dili karaa beeraha marka lagu shubo dhirta yaryar ka soo horbaxdana waa gumaadaysaa xayawaankana waa gumaadaysaa walidaalka waxaa la yidhaahaa 60 miligram oo nikotiina haddii wariidka lagaa siiyo haddii xididka lagaa siiyo khalaas oo dhimanaysaa laakiin inuu jidhku absorb gareeyo sambabka laga absorb gareeyo ayaa quantity-geedu yaryay that's why aad u nooshay weli laakiin haddaad sigaar cabbi lahayd oo xagga lagaa siin lahaa waa horay madhan lahaayeen cidi kama noolaateen qolada sigaarka cabta si kale markaynu u tilmaamno nikotiinku waa maado sababta walafka ama addictionka oo uu ka khatarsan yahay xataa khamriga markay noqoto xagga addictionka maada qiiqan la cabo boqolkiiba 85 ilaa 90 buu gaarsiisay bay leeyihiin halka khamriga ay ku qiimeeyaan boqolkiiba 15 qaadku dhanka uu ka yaryahay oo walafka qaadka waa maadooyinka la walfu ka mid yahay qaadku addictionka laakiin inaad qaadka iska daysaaba ka fudud inaad sigaarka iska dayso oo labada waxa adag sigaarka addictionkiisu ka adag yahay qaadka marka aan soo koobo waa xanuunkan keena qofku inuu cimri degdego dhalinyaro markiiba madaxu cadaaday oo calaamaadkii da'du ka soo muuqdaan waa cimri degdeg sigaarku wuxuu ka mid yahay xanuunada keena cimri degdeg ah waxay yidhahdeen sigaar cabku 10 sannadood buu da'diisa ka weyn yahay bay yidhahdaan muuqaalkiisu waa xanuun ku dhaca wuxuu ku dhacaa bay yidhahdaan maado jiin cajiiba oo ah jiinka dib u cusboonaysiiya DNA-da qofka iyo maxay selskiisa unugiisa cusboonaysiiyo khalkhalgeliya marka sida xanuunkaasi oo kale ayuu wuxuu ku reebaa qofku inuu ka horgaboobo qofka kale oo sigaar cabku waxay dhahaan 10 sannadood buu ka weeyay da'diisa normalka ah markaan soo koobo shiishadda daraasaad badan baa maanta lagu sameeyey cilmi baadhis badan مثلا jaamacadda Virginia Commonwealth ee Mareykanka cilmi baadhis ay samaysay uu hogaaminayo professor la yidhaahdo Thomas Eisenberg oo lagu soo saaray jariidada caafimaadka yani atib alwaqaa'iga ee Mareykan waxa uu leeyahay kuwa shiishada cabba waxa ay nuugayaan ama waxa ay cabbayaan carbon monoxide iyo nicotine u bandhigaya wadna xanuunka iyo xididda engega iyo nicotine oo ah isna maadada keenaysa idmaanka markaynu soo duuduubno daraasada ama cilmi baadhistaasi waxa lagu sameeyay 31 qof oo mutatawiciina oo da'doodu 18 jir ilaa 50 jir u dhaxayso qaarna xabad sigaara la cabsiiyey qaarna shiishad baa la cabsiiyey kadib waxa la baadhayaa markay midna sigaarka cabo midna shiishada cabo qof walba dhiig baa laga qaadaya waxa la baadhayaa dhiigiisa inta maade ee ku jirta siiba waxay baadhayeen oxideska carbon monoxide iyo carbon dioxide waxa jirkaaga ku jira waxay kaloo baadhayeen nikotiinka jirka ku jirta dabeetana waxay yidhaahdeen halka shiishada ee uu cabbay wuxuu ka badan yahay kan xabadda sigaara la siiyey 48 goor يعني isagoo 48 midho sigaar cabay bay u dhigantaa walidaalka wuxuu tilmaamayaa professorkaasi Thomas Eisenberg la yiraahdo daraasadan ama cilmi baadhistani waxay sheegaysaa buu yiri nuugista la nuugo shiishadu inay ka khatarsan tahay sigaar cabista caadiga ah markaas daraasaadkan Ingiriisku uu leeyahay mukaafaxatu tubaqa la dagaalanka sigaarka
iyana waxay soo saareen iyagoo baxthi sameeyey inuu in badan ka badan yahay carbon monoxide iyo bahlada uu nuugaya waxa ka sigaarka cabaya caadiga uu nuugayo waxay qiyaaseen dhiigiisa mid walba inta ku jiraysa halka qofka caadiga ah bay yidhaahdeen 3% wax ku dhow dhiigiisa oo dhammi aanu si caadi ah u shaqaynaynin ka sigaar cabka fudud boqolkiiba 20 baan dhiigiisa si caadi ah u shaqaynaynin carbon monoxide ku cabay daraadeed ka sigaar cabka weyn baakiriya wax ka badan cabba boqolkiiba 30 ilaa boqolkiiba 4 dhiigiisa ka mid ah normal u shaqaynaynin bay tilmaamayaan Dr. Warren wuxuu tilmaamayo kale 10 miligram oo tubaako ah oo shiishad lagu cabo 30 daqiiqadood waxa ay keensanaysaa buu leeyahay 4 ilaa 5 midho sigaar u dhigantaa buxuusta noocan laga sameeyay waxay ku xidhantahay tubaakada nooceeda qofka iyo qaabka uu nuugayo iyo bahasha iyo qaabka uu samaysantay marka qaar baa waxay gaari karaan bay leeyihiin ilaa 400 oo xabbo oo sigaar ah normality-gu wuxuu u dhaxeeyaa bay leeyihiin 48 xabbo ilaa 70 midho sigaar ah marka dadka shishada cabaa waxay is leeyihiin waad ka khatar yartay kuwa sigaarka cabaya kama khatar yare uu ka khatar badan yahay dhowr sababood baa uga khatar badan yahay dosage-kiisa oo dhan isagoo horta mar buu wada qaataa ka sigaarka cabaya waxa laga yaabaa inuu waqti u dhaxdhaxaysiiyo laakiin kan hal saac buu fadhinayaa halkaa saac oo dhan qiiq buu cabayaa waa marka labaadee sigaarka nawcun maa qaabun baaba loo kontroolaa waxa lagu darayo laakiin xashiishadda si loo kala loo sameeyaa shiishadda tan la nuugayo si loo kala ayaa nokahaadkan iyo waxaan lagu darayo lagu sameeyaa marka control kuma jirto saa daraaddeed way ka khatar badantay bay leeyihin daraaso sacuudiga ay samaynayeen jaamacad ku taalla 4 sannadood socotay waxay ku qiimeeyeen 13 nooc oo tubaakada shiishada lagu cabaa bay baadheen way kala noocyo gadisantay bay leedahay waana kala khatarsantay laakiin marka la isku celceliyo bay yidhaahdeen 8.32 miligram nicotina ayaa cala ra's ugu jira waxay ku qiimeeyeen oo ay tilmaamayaan shiishadaasi inay u dhiganto 70 midho sigaar ah sigaarku dunida wuu soo yaraanayaa eeshiya iyo caalamul muslimiinkana wuu sii tiro badanayaa reer galbeedku horey u ogaadeen sigaarka iyo dhibuhu leeyay dabeetana qawaaniin badan baa lagu xadeeyey dadkii wacyigelin badan baa la siiyey brogaraamo badan baa laga sameeyey idinkana waxaan idin leeyahay carwaa ninka google image intuu galo ama youtube galo sawirada xanuunada laga qaado intuu daawado sigaar dambe caba intuu daawado dadka xanuunka ku dhacay qof walba clinican in lagu tusayo markii uu baakirka hore cabay sidoo noqday markuu intaan cabay sidoo noqday kansarka ku dhacay inta xanuuna ku dhacay ay tirinayaan tala bixinta dhakhtarka qaar diiday iyo say ku dambeeyeen haddaad aragto yacni maad istirahdeen waxba qof bini aadami uu dib ugu noqon karaya laakiin caalam alislaami iyo eeshiya inteeda badan waxaad moodaa sigaarku inuu ama qiiqa cabistu inay si hayru caadiya noqotay sacuudiga oo meeshay diintu ku soo degtaya 15 bilyan oo sigaar u cabaa sanadkii waxay yidhaahdaan 8 bilyan oo lacagu ku isticmaalaa masar 80 bilyan oo sigaar ay cabtaa sanadkii bay yidhahdaan dunida waddanka ugu badan marka dadka degan iyo inta sigaar cabto la soo eego waa turkiga boqolkiiba 7 baa cabaa وعالم الإسلام وحن كورميا دول كعربيت بيدهدان لما بقولوا بليون أو سيجارة عبان سنتكي أو أنت بدن مريكان يكيب سدان مركا لا يسكت دربيدهن دولتها عربيت وحي العكب بحيان وحبرشدة هي عافمات كل يسكت دري أنت سيجاركو عبان بك بدن هذا قياس أمد مسلمة ووزارة وحبرشة وحي العق استعماشه iyo wasaaradda caafimaadku waxay lacag isticmaashay marka la isku daro wasaaradda sigaar cabistu ka badantay waa caalamka carbeed aynu ka nimi caalamkii muslimiintu saasuu u yaallaa runtii hay-ada caalamiya waxay ku tilmaamaysaa dunida 6 daqiiqiyo barhkii kastaba in qof sigaar uu u dhinto 6 daqiiqo maaha waa 6 sekond 6 sekond iyo barhkii kastaba inuu qof sigaar dilo
ولذلك جمعية الأمريكية لأطباء الأورام أما أوروركا maraykanka ee dhakhaatiirta xanuunada bararada shir ay mu'tamar ay lahaayeen ayaa waxaa ka hadlay John Safrin nin la yidhaahdo markaasuu wuxuu yidhi sigaar cabistu ama qiiq cabistu buu yidhi waa silaaxu الدمار الشامل الوحيد الذي يهدد البشرية عبر مختلف أنحاء الأرض WMD buu leeyahay WMD-ga soo ma taqaaniin weapons of mass destruction bay yidhahdaan wuxuu leeyahay waa hubka qura ee waxgumaada ee dunida lagu isticmaalay bini aadamka khatarta ku haya waayo nuclear dunida 5 milyan ka dila sanad walba miyaa jira sigaarka iyo inta u dhibata 5 milyan bay gaadhaa baa la leeyahay qiiqiisa inta u baktida daraaso kale oo maraykanku ay sameeyeen waxay tilmaamayaan dunida 30 milyan oo qof oo cusub sanad kasta sigaarka barta bay yidhaahdeen oo ku biira qaafilatul mudkhiniinka waxay 15 sannadood cilmi baadhis la sameeyay oo 4572 qof lagu sameeyay ayaa waxay leeyihiin xataa ka cabayada iyo kuwan agtooda lagu cabay waxay aad ugu dhowdahay bay leeyihiin inay diabetes noqdaan xanuunka diabetesku inuu ku dhaco markaan soo duuduubo shiishadu sigaarka inay ka khatarsantay mooyaane kama fiicna shiishada iyo sigaar cabistuna bulshada waxay ku hayaan dhib bulsheed mid caafimaad mid jidheed mid nafsiya khalaaya dimaaq xataa sigaarku wuu dilaa xataa waxaa la leeyahay environment-kan iminka la leeyahay carbon monoxide iyo carbon dioxide kan la sii daynaya ha la yareeyo sigaar cabistu waa waxyaabaha ugu badan ee la sii daaya bay ka mid tahay bini aadamku sigaarkan uu buufinaya environment-ka waxyaabaha qarribee ugu badan bay yana ku jirta maxaan ku soo duuduubaya xukunkoodu waxaan oo dhan muxuu noqonayaa intan oo dhan waxaan idiin akhrinayay reer galbeed iyo meelahooda cilmigu waxa ay ka sheegeen haddii ay sidaasi dhab tahay bal aan qur-aankana idiin sheega markaa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min طayibaati ma razaqnaakum washkuruu lilaahi in kuntum iyaahu tacbuduun waar dadka mu'miniinta ah baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala waxa wanaagsan aan idinku arsaaqay cuna ilaahayna u mahad celiya sigaarku miyuu ka mid yahay waxa wanaagsan iyo qiiqu iyadoo la leeyahay 400 baan markii hore dhigay maaha 4,000 oo maada ku jira la leeyahay ilaahayna quraanka wuxuu ku leeyahay walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima war naftiina hadilina waa qatl batii waa dil aayara إلهي القرآن كوحي نقول وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إلهي درتي وحول بحا ولا فيهن هلاك كل دين بالليل نقال أهان نينك سيجار كعبا يوحى كرون نينك صبحين تسكى صوت وصيداني وبالود يربان لا يعنو تبان باون بان قباه تبان باون صبحي مرقوري كصباح يضبك الصارة ما هذا الله يتكاه subax walba ninka 10 pound dabka iska saara waxa oran lahaydeen de waa ma ha qof caadi ah oran lahayd way lacag ugu gubay ninka sigaarka cabaya lacagtiina wuu gubay caafimaadkiina wuu xumeeyay wax badan buu kala qarribay kan ba ka roono kan lacag qulu gubay laakiin kani lacagna wuu gubay dib badan oo tiro badanna wuu geystay ilaahina wuxuu ina leeyahay wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin waraxad gudbina إسراف صميننا ولا تبذروا إذن إخوتي في العقيدة السقاقاتكم مدبو ديري يبا وحكالي دراقس كالدوني ده بلشوين كاين تبادان دادك اللي تا استعماله إنك الدرقين انت الروم با استعماشه ummad bal adigu waxaad qiyaastaa aqoon-yahankeedii culimadeedii hore qaar ka mid ah dhaqaalayahankeedii maxaa la yidhahaa caaqilkeedii suldaankeedii wasiirkeedii madaxweynaheedii intuba darag cabto bal adigu qiyaas yani wax qariiba waxay ahayd daragga bulshada inta liidataa inay cunto
oo la yidhaahdo ummadda tan drag bay isticmaashaa laakiin draggeeda dee bulshada inta liidataa isticmaashaa laakiin bulsho higher classkeedu dabaqadeeda sare ay mudminiin dhammaanteed wadatay dabaqadeeda sare ay tahay narcotic man narcoman ay wadayiin waa wax runtii aad loola yaabo qaadiyo sigaarkaba ikhwati waa la iska dayn karaa horta qaadku isagu wuu ka fududiyey dayntiisu sigaarka wuu ka fududiyey waayo dependenska marka la xisaabinayo kuwa sare kuma jira qaadku kuwa ugu hooseeyu ku jira iska dayntooda ay fududahay sigaarkuna waa la dayn karaa laakiin waxaad u baahan tahay inaad dayso dhowr shay kow ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahy in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim nadaradda aynu aragtidaynu ka qabno sigaarka iyo qaadku marka hore inay aragti saliima noqoto waa wax fiican iyo waa wax lagu xaragooda iyo wax waqtiga lasku sheekada intaad ilowdo inaad xaqiiqadiisa ogaatid markaad garato inuu waxaan yahay sun aad jidhka ku dirqinayso ku buufinayso caqligu wuxuu keenayaa inaad go'aana qaadato inaad ka tagto waa marka labaad inaad ilaahay barido waa marka saddexaad inaad caziima yeelato go'aan inaad yeelato bini aadamka caqligaa hogaamiya neef xoolaa maaha qofka bini aadamkaahi saa daraaddeed waa sucuuba adayg baa ku jira in la joojiyo laakiin waa adayg laga gudbi karo qofka bini aadamka hadduu go'aan yeesho wuu joojin karayaa waana badan yihin maraykan oo qudha dhowr sannadood waxay dhahaan 30 milyan oo qof baa sigaar iska daayey sigaarka oo kii ugu sarreeyay haddii la daayo waxa ka hooseeyana waa la dayn karaa idan waxaan ku soo koobaya wakhtigaa gabagaba ahe sigaar iyo qaad waa la dayn karayaa caafimaad ahaanun baanan uga wax ka tilmaamay laakiin haddii mu'tamarka dhammaantii laga dhigo sigaar iyo qaad oo la isugu yeedho dhaqaalayahanadeenna iyo dhakhtaryahanadeenna iyo bulshadeenna iyo aqoon-yahankeenna waxaan isleeyahay kuma fillaadeen ka warrankiisa laakiin deriskan waxaa loogu talagalay inaynu isbaraarujinno dhaqaale ahaan haddaynu soomaalina waynu burburray waxaanu ka mid yahay sigaarku dowladaha yaryar ee soomaaliya ka dhisan qaar ka mid ah waxaa la isu qiimeeyey barjadka dowladduba ay sanadka ku shaqayso iyo intay qaadka dadku ku cuno waxa badan inta qaadka dadku ku cuno yani inta qaadka lagu cunaa waxay ka badan tahay maxay barjadka dowladaha meesha ka dhisan oo dhan taa macnaheedu waxa weeyaan waynu hanti beellay oo wayna caqli tiray oo wayna caafimaad tiray oo wayna bulshadii buu burburiyey oo guryihii buu baabi'iyey oo carruurteenna soo socota ayaa ninnimada waxay u arkayaan in qaad iyo sigaar la cuno waayo inay bulshada ku biiraan waa inay goobaha raggu fadhiya dee tagaan bulshada dadka yaryari waxay egtaan un dee dadka waaweyne waxay samaynayaan haddii madaxweynahaagu qayilayo wasiirkaagu qayilayo suldaankaagu qayilayo caaqilkaagu qayilayo dan maxaa u diidaya inanka yari inuu qayilo ama inuu sigaar cabo ilaan dabaqadii bulshada u ahayd muuqaalka kuwaasiya dabaqadii uu rabay inuu ku biiro ama inuu hiigsadaa ficladay samaynayaan wuu samaynaya walidaalik inan yar ma odhan kartid war qaad iska daa war sigaar iska daa maanta dadka aan la hadlaya waxa weeyaan waa wasiiro waa madaxweynayaal waa salaatiin waa cuqaal waa aqoon-yahan waa waxgarad waa dhakhaatiir dhakhtar intuu buufiyo ku yidhaha sigaarku waa sunbalka war dhakhaatiirta soomaaliya nusba cabaa waanu buufinaya waana dhakhtar waanu ka warramayaa inuu sun yahay waa runtii waa caqli dareer weeyaan yani waa dadkii oo maanku uu ka sii guurayo waa nooc waalida ka mid ah qof arkaya wuxuu ku dhimanayo isticmaalaya waa nooc waalida ka mid ah runtii deriskan runtii dhallinyarada waxaan leeyahay waa wax xun waxaasiya hal iska dhaafo waayeelkana waxaan leeyahay waar ummadda tusaale u noqda oo wax kale haddaana tusaale ugu noqonaynin dhaqankaaga unugu noqo oo bilaahi calaykum wax kale haddaydan ugu noqonaynin warqaad iyo sigaarkuun iska daaya haddaa intaa soomaali ku taageertaan waxaan is leeyahay wax weyn baynu qaban kari lahayn mithaal basiitaan idin siinaya waddankan turkiga la yidhaahdo magaalada istanbul la yidhahdo xaafadda faatix la yidhaahdo masaajid baa ku yaalla saankiyadim baa la yidhaahdaa saankiyadim eraygu af turkiga macnihiisa waxa weeyaan iftarad annanii akaltu aw kaannanii akaltu waaba anigii oo wax cunay
nin fakhrudiin la odhan jiro muslim ahaa baa dhisay ninkaasi muxuu ka dhisay masaajidka dhan waxau ka dhisay waxa la yidhi markuu suuqa soo maro nin iska zaahida buu ahaa aw naftiisu wax yaroo ay kahatay uu arko ama uu jeclaaday khudaar yaroo fiican wax yaroo fiican ayuu wuxuu idhahaa ka soo qaad anigoo cunay dabeetana intaasuu sanduuq ku ridi jiray shaah buu u baahday ama koof u baah wax yaroo uu jeceliyo arkay ka soo qaad anigoo cabbay unbuu yidhahdaa sanduuq buu ku ridaa sanduuqii buu berigii dambe furay masaajid buu sanduuqaasi dhisay ka soo qaad anigoo qaad cunay haddaad tidhaahdo meel ku riddo intaa hadda soomaaliyaba waa dhisaynaa wixii burburay oo dhan intaasaa ku filan haddaynu isku raacno inaynu dhahno sanduuq laydhaha ka soo qaad anoo qaadka cunay oo maalintaa intii aad ku barjayn lahayd oo qura aad ku ridday waddanka dhammaantii waa dhisi karaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu